dadweynaha ku dhaqan magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceer Gaabo ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay wareejinta haamaha kaydka shidaalka Soomaaliland ee shalay toole mooshinkiisu sababay dagaalka gacanka hadalka ee dhexmaray gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro iyo ku-xigeenkiisa Baashe. Haddaba telefishinka caalamiga ee Star TV oo codbaahiya saaka la dhexmaray dadweynaha magaalada Ceer Gaabo si ay aragtiyahooda uga dhiibtaan amuurtan ku saabsan wareejinta haamaha kaydka shidaalka danta shacabka u dagaalamaysa sida gudoomiyaha wadani uu shalaytu ku kacay hambal yaanu leenahay waa la kireenayaa la kireen maayo wax dhibaato ah male hadii la kireeyo hadaa la kireen dawladda ka masuul loo doortay marka waxaanu leenahay arinta foolxumada leh la isku qabsanayo ee cadowgu arkayo inagu aan wali ictiraaf 25 sanadood maanta weynaan dib ugu noqonin halkii aynu ka soo bilownay aad uga yaabay ninka gudoomiye ku-xigeenka ah ee Siilaayo soo diray ee lacagta u dhiibay ee golihii baarlamaanka iyo dawladda maanta burburiyay laakiin Ilaahay baan u mahad celinayaa isagoo maxay ahayd Ciro u badbaadiyay oo uu maanta ku guuleystay Soomaaliland uu ku badbaadiyay ka xumay gudoomiyuhu way ka xumaatay tahamaha shidaalka waxa weeye dalku madaxweyne ayaa loo doortay wixii danta qaranka isaga ka masuula hadii uu kireeyo xaq buu leeyahay waxaanu ka kireenayaa sidaan deenuga igu maqaalaa shirkad wadani oo Soomaaliland taasuna waxa weeye waa danta madaxweynaha iyo dastuurka u banaynaya sallallahu alayhi wasallam waxa weeyaan shalay arrinkii ka dhacay golaha baarlamaanka waxaanu leenahay gudoomiyuhu sharci buu haystaa hooyan oo haystaa go'aankiisa iyo hooyay shaqadiisaba isagaan xor oo ah madaxweynaha waxaanu leenahay madaxweyne waxa weeye dirqintan maalin walba mooshinkan aad ku soo celcelisid waxa weeye golaha baarlamaanka ka maday dawladda inta mandate ku hayso inay maamusho haday maamul kari weeyday khayraadkii dalka oo ka mid yihiin haamihii shidaalka dekadihii wixii la mid ahaa dawladdu ay leedahay waan wareejinayaa hadii maxaan ku dhahaa awoodi kari weydeen inay maamushaan waxa weeye waxa xigi doonta kursiga madaxweynaha iyo madaxtooyadana shirkad baan u soo kareysanaynaa noo maamusha waxuna aad iyo aad waxuna way dad mas'uuliyiin oo maanta dagaalamaya aad bay waa shaqo xun weeye xalka waxaan saarnaa xukuumadda hantii dadkay doonaysa inay boobto oo ay fito tayo socotaa waa lugna oo gobolka Sanaaga marka aad khiyaamanina hadii la yiraahdo hawdoodinina hantidii dalka la iibinaya maalmaha dambena wax kala la iibinaya hadii imka hantidii dalka la boobo wareejinta haamaha kaydka shidaalka Soomaaliland ee xukuumadda Siilaayo doonayso in ay shirkado gaar ah u xidho ayaa muddooyinkii u dambeeyay lagu soo celcelinayay dhagaha shacabka Soomaaliland walow aanay wali xukuumaddu ku guuleysan hamigeedii ahaa wareejinta haamaha kaydka shidaalka. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar telefishinka caalamiga Star TV magaalada Ceer Gaabo.